Inaad iibsato course video editing laguma barto. Course editing inaad iibsato waa waqti lumis. Waxaad sirjigaraysaa video editing kadib waxaa kuu soo baxaya channels badan oo ka hadlaya editing. Kadibna waxaad daawanaysaa tutorial shortska ay sameeyaan channelada qaar sida kuwa aan sameeyo. Kadibna practice garay waqti badan geli ku celceli halkii aad course waqtiga ku lumin lahayd. Badanaa editorska waxay waqtigooda ku lumiyaan sidii ay u soo saari lahaayeen hal muuqaal oo dhammaystiran. Laakiin runta waa tan, joogteynta ayaa ka wanaagsan inaad waqtiga ku lumiso sidii aad u soo saari lahayd hal video oo dhammaystiran. Ka fikir, editorska aad ugu jeceshahay waa si joogto ah u soo boosti karayaan muuqaalo iyagoo si tartiib ah u soo hagaajinaya xirfadooda. Haddii aad diiradda saarto joogteynta, editingka wuxuu noqon doonaa mid dhammaystiran. Isku day inaad diiradda saarto hal software ilaa aad ka noqonayso professional. Iska ilaali inaad marba software kale aado. Editingku waa sida cunto karinta, maalinka ugu horeeya ma soo saari kartid cunto dhadhan leh, laakiin haddii aad ku celceliso waxaad soo saari kartaa cunto dhammaystiran. The more aad practice sameyso, waa the more ay xirfadaada sii kordhayso. Haddii aad ku weerartay saaxadda editingka, halkan waxaa ku jira talooyin kaa caawin kara inaad si habboon u barto una horumariso xirfadaada. Baro fahamka aasaasiga ah. Faham farqiga u dhexeeya noocyada editingka: video editing, photo editing, text editing, audio editing. Ku bilow waxyaabo fudud, ka fogow inaad isla markiiba barato barnaamijyada adag. Ku bilow software sahlan. La soco trendiska, faham waxyaabaha caanka ah ee loo baahan yahay in la edit gareeyo, tusaale ahaan TikTok Shorts iyo Reelska. Practice. Editing waa xirfad la barto marka lagu celceliyo. Samee muuqaalo badan oo kala duwan. Ha ka cabsan khaladaadkaaga. Qof walba wuxuu ku bilaabaa isagoo xirfadda aan aqoon u lahayn. Khaladaadku waa qayb ka mid ah barashadaada. Dhis portfolio. Ku kaydi goob muuqaaladii aad editiraysay si aad u hesho fursad dadka ku muuji waxyaabaha aad qaban karto. Ha sugin dhiirigelin. Qorshee waqtiyada aad editiraynayso muuqaalada si aad ula qabsato. Editing waa xirfad lagu barto joogteynta ma aha hal mar. U fiirso dadka kale muuqaalada siday u edit gareeyaan. Daawo dadka aqoonta sare u leh xirfaddan. U fiirso sida loo kala gooyo clipska, sida loo isticmaalo transitionska iyo color gradingka. Dib u samee sawirro ama muuqaalo aad jeceshahay si aad u fahanto. Baro designka iyo storytellingka xitaa haddii aad isticmaasho software fiican. Waxa muhiim ah waa aragtida hal-abuurkaaga, ma ahan software-ka.